doono calanka kalbacdi magaciisa waxaa la yidhaahdaa gobonimoy howdii iyaduna inay maanta ciid tahay meel kasta caleemaha lamula iyo meel kastaba ciyaar tahay calankeenu kaas yahay aan libintii catoobsaday cadowgeenni uu jabay caasimadu Godey tahay miyaa cidila weydiin calayahow sidaadaba cirkoor roob ka da'ayiyo cadceed soo baxdaa tahay midaan cudur lahaynoo caafimaad wadaa tahay mid ilaah ciseeyo rabbi noo carfaa tahay soomaali weyn cududeeda caddaan iyo madow badan kii cadhiidhi geliyee adduunyada kucaane cilmiyaysan baa tahay geed caleema badan iyo asal lagu nagaadiyo alla dhalad xun aad tahay duhaani oo nagu caawin inuu geedka cadkoosto oo cirka iyo dhulkaba qiyaamo ay ku xigaan oy cadceedan hoos ka maraan oo waddankooda cidiid iyo tuuga ay jeceshaan oy caafimaad ka hidaan ay nabadku soo celina oraha arag iyo jirjiroola qalaysan ciidanku ay baqayn isfogaan oo ardankaa ka baxaya laga sii cararaa shay oo caado ah weeye calaamad loo tahay weeye cashiro loo dhiga weeye kuu caana shubanaya calayahow ha qarsooni weligaanu ku leeyahay marka soo sheekaynay waxaan u soo dhaweynaa madaxweynaha zoonka shanaad ee madaxweyne Cabdulahi maxamed sacdi. By the name of God. Members of the parliament. And all masses of the people. Those people who have struggled for this liberation. Today is a very great day. It's a day that we are celebrating on hosting our flags. The first day. ዛሬ ከሌላው የተለየበት ፍቅር የሆነበት ዛሬ የራሳችን የሆነ ሰንደቅ ዓላማ ያውለበለብንበት ቀን ነው። ዓለንከን አይኑ ማንተ ሳራይኖ ማሃ ሚትኩይሚት ዲቢያራን. The flag that we are hosting today didn't come very easily. ያውለበለብንበት ዛሬ ያውለበለብነው ሰንደቅ ዓላማ እንዲሁ በቀልድ አልመጣም። Through bloodshed, struggle and hard work. ብዙ መስዋዕትነት ደም ማፍሰስና ብዙ ችግር ያየንበትና ያመጣነው ነው። We have sacrificed a lot of economy, life and property for this flag. ይህንን ሰንደቅ ዓላማ ለማምጣት ብዙ ሀብት ብዙ ህይወት ያጣንበት ነው። ዋሊድ عبور بدني أقول ونقدين فوين بدنا أسيء وكان lost their husbands. ብዙ ህፃናት አባቶቻቸውን ያጡበት ብዙ እናቶች ደግሞ ባሎቻቸው የሞቱበት ሰንደቅ ዓላማ ነው። رك بدنا كواين عروتو دي إيش علاين سيها الدماءين وحسنو lost their sons and daughters. Therefore, it works. jidkii aynu beri qaadi lahayn waxaa lagama maarmaana inaynu dib u jalleecno taariikhdii aynu shalay soo marnay. In order that we have to find out the struggle road that we have been through, we have to remember what happened yesterday and under the circumstances that we have been through. እንደምንወስድ ስንፈልግ ያለፈውን ታሪካችን ምን አይነት እንደነበረና በምን አይነት እንዳለፍን ማስታወስ ይገባናል። sida aad wada ogsoon tihiin halganka shacbigeenu wuxuu la kowsaday markii uu gumaysiga Ethiopia oo hogaaminayay mililid cagaha soo saaray ciideena daahirka ahayd.
as you remember, the struggle of our nation has started on the beginning of King Madax when he came to here and occupied us. የተከበራችሁ እንግዶቻችን የህዝባችን መስተዋዶና ተጋድሎ ወይንም ካለው ጦር ጋር ያደረገው ግንኙነት በምኒልክ ጊዜ ነው መሆኑን ታስታውሳላችሁ። asagoo helay saanad iyo hub-aan axad lahayn gumaysadii reer yurub ayay ku suurta gelisay qabsashada dhulkeenna qayb ka mid ah markii qarankii 19 In the 19th century, King of Madax got enormous arms, lot of arms from the Western colonialisms. Then after that, he fulfilled to occupy our people and our country on that arms. እንደምታውቁት ሁሉ አድሃሪው የምኒልክ ጦር በሀገራችን ውስጥ ከ100 ዓመት በፊት ብዙ መሳሪያ ከኮሎኒያሊስቶች በማግኘት ወደ ሀገራችን ሰፍሯል። waxaana talaabadaas gumaysiga dhammaystiray Itoobiya boqorkii Haile Selassie oo 1954 hadiyad loogu siiyey qaybtii ugu dambaysay ee geyigeena ee howd iyo reserve area. አድሃሪነት በእንግሊዝ አስተባባሪነት በ1954 ዓመተ ምህረት ሀገራችን በተለይም ሪዘርቭ ኤሪያና ይሄ ያለንበት ሀገር እንደ ስጦታ ተሰጠው። qabsashada gumaysiga dhulkeena shacabkeena kuma soo dhaweyn caleemo qoyan iyo gacmo furan. Our people and our nation didn't welcome the colonization of this people that we have mentioned. እነኚህን ኮሎኒያሊስቶች የእኛ ህዝብ በለመለመ ቅጠልና በሚያውለበልብ አቀባበል መስተንግዶ እንዳላደረገ ታሪክ ይገነዘበዋል፣ ያስረዳናል። በል waxay kala hortageen diidmo kulul ay ku cabireen dagaallo hubaysan. Our people started confrontation and denying against the colonial system. ሀገራችንና ህዝባችን ይህንን ኮሎኒያሊስት ፋሺስት ለመቃወም ተጋድሎን በማሳየት እና እንደዚሁም በጦር መሳሪያ ነው የተከላከሉት። halka ka shacbigari እንደዚሁ ሲከፋፈል ይሄም ተከፋፈለ ለማለት እንችላለን። ururkii Israel ee guulaystay xorriyantii iyo midayntii waqooyiga Soomaali iyo koonfur Soomaaliya shacabkeenu wuxuu ka qaatay doorkii ugu ballaadnaa gobollada dhulkeena meel uusan farac ku lahayn ururkaasu ma jirin, haddii uu jirayna wuu yaraa. Our people and our organizations have participated the liberalization of the southern Somalia into the northern Somalia, which is called the Somali Republic, with the Somali Youth League and all the people over there. የኛ ህዝብ በተባበረ በህዝባችንና እንደዚሁም የጦር ኃይላችን በደቡብ ሶማሊያና በሰሜኑ ሶማሊያ ሶማሊላንድ በሚባለውና በደቡብ ሶማሊያ በሚያደርጉት ጦር ንቅናቄ እንደዚሁም በሶማሊ ዩት ሊግ ወይንም በተባበሩት የሶማሊያ አንድነታቸውን አሳይተዋል። እንደዚሁም እርምጃ ወስደዋል። ወርቂ ነስሩላሂ ሲ ከሶሪያ በዱዌና መሰረት ከለሙ Then the Nasrullah organization has been created secretly, and I want you to know all of it. ነስሩላሂ የሚባለው የሀገራችን የመጀመሪያው ንቅናቄ በማይታወቅ በውስጥ ለውስጥ ተቋቋመ። ይህንን ላሳውቃችሁ እወዳለሁ። جمعت نصرالله وهدف كيدو أها حرينتا لوكينا وحيسو هوليسي كل سياسية ولا تابنكر. The Nasrullah Liberation Front have fulfilled many victories which can be remembered today. ነስሩላሂ ካስገኛቸው
አበይት ነጥቦች አብዛኛው ሀገራችንን ለነጻነት ለማድረስ ሲቃረብ